fadlan ku xidhnow Tukuyo Media Group. Like, share and subscribe. kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysada adduunka oo toddobaadkiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda Radio Muqdisho. toddobaadkana waxaanu ku soo qaadanaynaa wargeyska The Economist ee ka soo baxa dalka Ingiriiska oo wax ka qoray ganacsiga galeyda adduunka, taasoo la sheegay in dalka midowga Soviyeeti sanadkan ay abaar la soo gudbanaadeen xagga galeyda u soo bixi jirtay, sidaa darteedna uu galey fara badan ka soo iibsanayo wadamada reer galbeedka. waxa kale oo ku soo qaadan doonaa faallo ku soo baxday wargeyska xiddigta October ay maalin walba soo saartay wasaaradda warfaafinta oo wax ka qortay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya iyo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. wargeyska The Economist ee ka soo baxa magaalada London ee cariga Ingiriiska waxa uu qormadiisa ku bilaabay midowga Soviyeeti waa ka baaqday oo uma uusan amba bixin ciyaaraha Olympic ee dhawaanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. hase yeeshee waxa uu bedelkii ciyaarahaasi u amba baxay suuqyada ganacsiga ee Chicago ee ka tirsan dalka Mareykanka si uu uga soo iibsado galey. suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo miraha ka soo go'a beeraha dalka Mareykanka waxay Soviyeetigu ka soo gateen in ka badan 14 milyan oo tan oo galey ah. galeydaasi faraha badan ee midowga Soviyeeti uu dhawaan ka soo gatay suuqyada beeraha ee dalalka Mareykanka waxa la cadeeyay inay xitaa ka badan tahay xaddi ahaan haddii la barbar dhigo galeydii tirada badneed ee uu Soviyeetiga Mareykanka ka soo gatay dabayaaqadii sanadkii 1972 iyo horaantii sanadkii 1973 markaasoo muddo 6 bilood gudahood ah uu Soviyeetiga ay ka rarteen ugu yaraan 20 milyan oo tan oo galey ah. midowga Soviyeeti galeyda uu u baahan yahay oo uga baahan yahay dalka Mareykanka kuma koobna baahidiisu. hase yeeshee waxaa jira dalal kale oo uu sidaa si le'eg ama ku dhow uu uga soo gato quudka uu ka soo iibsado. Soviyeetigu wuxuu hadda Mareykanka ka gatay 2.2 milyan oo tan oo qamadiya iyo 4.5 milyan oo tan oo galey ah. dalka Faransiiska wuxuu Soviyeetigu ka gatay 2.5 milyan oo tan oo qamadiya. Argentina wuxuu ka gatay 1 milyan oo tan oo galey ah. dalalka midowga Soviyeeti raashinka xaddiga badan ka soo gato inta kuma koobna ee waxa weheliya dalka Canada oo isna Soviyeetigu ka gatay 4 milyan oo tan oo raashin ah.